miqdaad radiyallahu anhu saxaabigii la oran jiray miqdaad ibn al-aswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tiri sidaas uu galgalan jiray sidaas uu habeenka u galgalan jiray sidaas markaas ay ku tiri war maxaa la galgalan maad bugtaa maad seexatida markaas uu oran jiray cabsida xasuusta aan xasuusanayo naarta jahanama ayaa hurdadii raaxadii iga qaaday buu oran jiray yakhafuun quraankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaabo hal aayad oo quraana habeenka dhan inuu ku soo jeedo nabigeenu kaleey salaatu wassalaam waati abi bilaal ba u yimid salaadii markay gaadhay yaa rasuulullah salaadii ba laga sugayaa waa nabigu lilmada ka daadatay maalintaas garkiisa intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wajiga uu ku hayay way qoysay markaasuu nabigu ku yaa bilaal xalayto la aayadaha quraanka igu soo degay waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة على عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي قولي نكا آياتها أخرية إن أنت تدبرون أنت تفكرين كاسوا خسارين ورسول كله تدبر صدح عمل markaad hayso hadaad qalbigaaga khushuucad ka weyday bay culimadu yiraahdeen qalbigaaga uu dhisay heerada soo dhaweeyay quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay